gudoomiyaha gobolka Badhan Maxamuud Xamed Cumar ayaa si ballaaran ugu mahadceliyay ciidamadii qaranka ee sida geesinimada lahaa isaga difaacay weerarkii gaadmada ahaa ee maleeshiyaadka Puntland ay ku soo qaadeen magaalada Hadaftimo ee gobolka Badhan. waxaanu gudoomiyuhu halkaas ku soo bandhigay gaadhigiisii iyo gaadhi ciidamadu lahaayeen oo baraha bulshada lagu baahiyay in lagu qabsaday weerarkii gaadmada ahaa. wararkii kuturkuteenta ahaa waxa gacanta lagu hayaa gaadhigii barasaabka gobolka Badhan iyo gaadhigii ciidanka xooga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Bartalaas qoray. ilaahay mahadi weeye labadii gaadhi oo aad aragtaan gacanta ciidanka iyo gacanteedii ku jiraan. waxaan rabaa dadkii wararka been abuurka ah kaga faanayay Garoowe hodheeladeedana kaga sheekeynayay gaadhi baanu gacanta ku haynaa. waa markhaatimo doonto inaan hantidayadii aan gacanta ku haysano. waxaan mahad gaar u soo jeedinayaa ciidankii la socday oo hogaaminayay Korneyl Nugaal iyo ciidankiisii. ammaan bay mudan yihiin siday u difaacdeen aniga iyo gaadhiga aan watayba. nimankan caadaystay had iyo jeer inay dadka gobolka Badhan ku nool amni darro ay ku abuuraan. waxaan leeyahay dawladdu waxay ka bixin doontaa jawaab cad gefkii nala kula kacay ciidanka qaranka iyo dawladduba tallaabo cad ay ka qaadi doonaan. mar labaadna ma dhici doonto. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celinayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah xuduudda ugu ballaaran ee jamhuuriyadda ay leedahay. ilaahay xamdigii weeye in ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka baxay qabiil uu yahay ciidan qaran. waa nasiib darro kii xaqdarrada inoogu soo duulay inuu qabiil noqday. taliyaha ciidanka qaranka ee fadhigoodu yahay magaalada Yube Korneyl Ibraahim Cali Samiir ayaa isaguna dhinaciisa wacd ku maray in ciidamada Soomaaliland ay ka jawaabi doonaan weerarkii gaadmada ahaa ee maleeshiyaadka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ay ku soo qaadeen gudoomiyaha gobolka Badhan. 20kii bisha shaqaaqa yar baa ka dhacday magaalada la yiraahdo degmada la yiraahdo Hadaftimo. gudoomiyaha iyo safarkiisa caadiga ah oo u socdo degmadii uu mas'uulka ka ahaa gobolku mas'uulka ka ahaa dhexda loo galay. niman social media ku faanayay oo rabshada ka waday waa arkiiseen. gaadiid baanu haysanaa iyo wax baanu qabanay. horta gaadiidkay sheegayeen ee saxaafadda looga been abuuray oo kuwan hareer taago kuwan oo ka sawirku hadeer hayo. waxaan sii socon doonin ama dabadeeda la hayna in qof ku faano ma waa laga qurux badan yahay. haday shaqaaqa dhacdana kulleeyda waxoogaa barbagaadhi waa jiraysa laakiin runta loo dhawaada ka wanaagsan. haddaad been sheegaysa waxa la yimid runta weeg baa la sheega. waxaan aad u amaanayaa adkaysiga wanaagsan ee gudoomiyaha iyo saraakiishii la socotay iyo ciidankii yaraa tirada yaraa ee la socdayba rasistankay muujiyeen adkaysiga muujiyeen siday isaga dhiciyeen nimankii ku soo duulay. 7 baabuur oo tignika ah ayuu gaadhiga yara dhishikii kali la dagaalamay wax xabad ku taalo arkaysa. waxaan aad u hambalyeeynaa intaas saarnayd 2 wiil baa ka dhaawacantay. intoodii kale way caafimaad qabaan. sarkaalkii watay waa kan Maxamed Cali Nugaal baa la yiraahdaa taliyaha ururka Laas qoray degmada Laas qoray waa battalion commander. gudoomiyuhu la socday hal gaari kaliya ay wateen iyagoo caafimaad qabaan waana ku mahadsan yihiin isaga dhiciyeen cadawga. waxay difaaceen madaxday la socdeen waxay difaaceen hantidii qaranka waxay difaaceen naftoodii difaac nafsi bay ahaayeen iyagu cidna dalaal kuma doonan iyo gardarro toon. midna waan u sheegayaa nimanka gaari gudoomiye wato intay wada u galeen waxbaanu cirkaan biyo ka soo dhaamin lahaa. ciidanka qaranka ayaan idin gafi doonin. hadday bilow inoo tahay farkacyaarka wadaan annagaan idin gafi doonin iyaga la idinka waayin faataa baqta. dadka marka waxyeelada geystaan ku faana maanta been baa ka sheegayseen. taliyaha ururka Maxamed Cali Nugaal aad baan kugu hambalyeeynaya sidaad u difaacday madaxdaad la socotay iyo hubkii qarankaba. gudoomiyaha adkaysigu u muujiyay isaguna aad baan ugu hambalyeeynaya. waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf warbaahinta qaranka Soomaaliland.